xiisad culus ayaa caawa ka taagan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana aad isu haya xubnaha mucaaradka iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya ciidankii ugu badnaa oo isugu jira ciidankii yimid furimaha dagaalka oo ay ugu badan yihiin kuwa militariga ayaa gudaha caasimadda la soo galiyay dawladuna waxay kordhisay xarumaha baariseed ama checkpointyada loo yaqaan ee caasimadda aad ayaa la isu hayaa rag badan oo ka soo tirsanaa badbaado qaran 2021 ayaa markan dib mar kale boorka uga jafaya tiimkii ay hore ugu soo tirsanaayeen iyaga oo wadna qabad ku noqonaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud haddaba waxaan si toos ah u tageynaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inaga oo soo tabinayna wararkii ugu dambeeyay halkaas ka jira sidoo kale madaxweyne Donald Trump mar kale hanjabaad culus ayuu tiray waayo cidda uu hanjabayo Trump maxaa ka jira in ciidamo dheeraad laga dajiyo dhuusamareeb hub urursina uu ka socdo qoorqoor iyo Xasan Sheikh si weyn ayay isu hayaan maamulka galmudugna waxa uu qarka u saaran yahay sidii lafta gareen ku dhacday oo kale wararkaas oo dhan ayaan soo koobayna ilaahay saaxiib inaad nagu soo biirto cashuurta kaliya qaadno inaad muuqaalka like saarto saaxiibadan u sii share gareyso oo maasan tahay mawduuceena waxaan ku bilaabayaa caawa dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana aad isugu haya xubnaha mucaaradka iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya oo dhexdeeda waxoogaa ay ka jireen maalmihii ugu dambeeyay iyadoo oo miiska dhowr jeer ay isaga kala kaceen labada nin ugu sarreeyay talada wadanka waa Xamse iyo Xasan kulamadii ugu dambeeyay ee caasimadda ka dhacay waxaa diiradda lagu saarayay qorshayaal dhowr oo hortabin u leh xukuumadda iyo sidoo kale madaxtooyada intaba waxaana laga wada hadlayaa sidii loo xalin lahaa galka maamulka galmudug oo noqday 72 saacadood ee ugu dambeeyay waxa ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya la hadalhaya qoorqoor baa joogaya mahad miyaa la geenayaa ganacsaha qaad ku caan baxay ee liibaan shuluq miyaa halkaas laga ridaya waa waxa ugu badan ee ilaa ay hadda laga doodayo xubnahan way is wataan qaarkood wayna is xambaarsan yihiin halka kuwa kalena ay kale u dagaalamayaan madaxweyne Xasan Maxamuudna damaciisa uu muuqdo oo uusan arkayn wax kale haba yaraatee waxa socdo hub urursi maamulka galmudug ku aadan dhaqdhaqaaqyo kalena caasimadda ay ka socdaan Israa'iil ciidan oo Saadiq Joon uu ku jiro ayaa wada iyadoo oo madaxdii hore ee wadanka uu ku jiro Sheekh Shariifna ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed gudaha magaalada Muqdisho ka wadaan ciidan aad u badan ayay dawladdu dhigtay xarumaha baariseed ama checkpointyada caasimadda iyadoo oo dadweynaha iyo gaadiidku aad loo baarayo lana hubinayo si markaasi amniga uusan wax carqalada ugu imaan ka hor 4 Juun oo mucaaradku ay ku barlansan yihiin dibadbax weyn oo galgala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wali waxa ay u muuqataa xaalka in uu yahay mid culus isla markaana dhinacyadu ay aad isku hayaan iyadoo oo waliba hardankan uu gaaray heerkii ugu sareeyay ama fikta sare geesta kale xaaladda guud ee deegaanada dawlad goboleedka galmudug ayaa aad u kacsan xilli saacadihii la soo dhaafay la isla dhexmarayay warar la xiriira dhaqdhaqaaqyo amni iyo ciidan oo ka socda magaalooyin ay ugu mudan tahay dhuusamareeb oo ah caasimadda gobolka galgaduud ila xogogaala ayaa waxa ay sheegeen in markaasi ciidamo dheeraada dawladdu ay geysay magaalada dhuusamareeb oo xiisad iyo dhaqdhaqaaq culusba ay ka taagan tahay sidoo kale ila wareejo kale waxay ku warameen in ciidankii ugu badnaa oo hal beel u badan ay ka soo kicitimeen cadaado iyaga oo ku sii jeeda magaalada dhuusamareebeed ee gobolka galgaduud kuwaasi waxay taabacsan yihiin garabka madaxweyne qoorqoor wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dhuusamareeb caawa waxay tilmaamayaan in magaalada aysan jirin markaasi wax dagaal ah oo dhacay laakiin xiisad iyo dhaqdhaqaaq amni la dareemayo amniga ciidamadii hore ayaa jooga xitaa ahlus sunna wal jamaa oo ah raggii hore ugu adkaaday qoorqoor isla markaana laga saaray deegaanada maamulkaas iyaga laftirkooda waxay wadaan dhaqdhaqaaq sida aan ka helay wararka ku helayno sidoo kale magaalada ama deegaanada maamulka galmudug dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa ka socda sida magaalada Caabudwaaq Cadaado Guriceel Dhuusamareeb xanan buure iyo magaalooyin kale ayaa laga soo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwa ciidanba ay ka socdaan goobaha la isugu yimaado ee fadhi ku dirarka iyo meelaha lagu shaaxaba waxa la hadal hayo maxaa dhici doona ay u badan yihiin dhagta ayaa kor loo wada taagayaa ma sidii lagu sameeyay lafta gareen oo kale iyo maamulkii South West ayaa ka dhici doonta galmudug mise madax ay ciid ka cishan doonaan madaxda maamulkaas ayaa ah su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo haddaba xalka galmudug muxuu ku soo ilaan doonaa guusha mar kale madaxweyne Xasan Maxamuud ay raaci doontaa mise waxa guusha markaasi ama libintaba la hoyan doono qoorqoor iyo kooxdiis aragtidaada nagu biir saaxib waa mahadsan tahay muuqaalkan ila daawo in sha Allah taala waxaan ka nimid dhinacan dawlad deegaanka Soomaalida tigjiga ilaa raaso intaasaan soo soconayno Soomaalidu waxba uma kala marno oo taana way wada degan tahay tanna way wada degan tahay xaqadu waa saas weeye reeru baqaybina xaqan taala
qaybina xaggaasi jirtaa saa ay tahay hadday xumaatana way naga xumaan hadday samaatana way noo samaan saa darteed baa kaliftay inaannu wixii caqligayaga ah kaga hadallo dowladdan iyo danaheeda waxaan anigu leeyahay odayaasha iga horreeyey waasyada iga horreeyey waxba kamayna tegin laakiin haddaan isku dayo sidaadaba ma habana nin baa wuxuu yidhi gaariye haddaan guuga kuu kordhaa gabow mooye ee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed waa runtii weeye geed ma dhaantid ajrina heli maysid haddaadan u dhaqaaqino waxyaabaha ajriga helaa waxaa ka mid oo kow ka ah islaax bayna naas dad isdilaya oo wuxuu isku dilay aan garanaynin ood kala qabatay aad bay u ajri badan tahay xaqa baan gudanaynaa diinta islaamka waan gudanaynaa horta bal idinku saa odayaalow niyeysta ajriga laga helaa tan lama koobi karo waxaan leenahay in yidhi iyo nimaan odhaninba iyo nin odhan doonaba soomaali nin baa xukumi jiray uu baxay intii ka dambaysay dawlad wax u eg waxaan haynaa ninkan hadda jooga xasan sheekh maxamuud ragga hadda la tartamaya ee aada le ha laga soo saara meeshaas sanaa la yidhaahda leh dee horta haddii shalay lagu dhegaystay maantana waa lagu dhegaysanoo hadalkaagii hore iyo kan dambe yaa la isbarbar dhigayaa xasan cunaqabataynta nasaaran hadna laga qaaduu yidhi waxaa nooloo hadda le xasan waa wax bixinaya raggii yidhi yaanna laga qaadin kii kuwii weeye kuwa kale maaha waa la garan wuxuu yidhi hana laga qaado daymaha hana laga cafiyo way joogaan raggii yidhi yaana laga cafiyin bal idinku eega haddana waxay leeyihiin dalka annagaa waxtari oo waanu badbaadine adu ka bax anugu waa iswaafajin kari waaye wixii dadkaba dan u ahaa nin diidan oo doonaya in la xidhxidhnaado dee dadka dan uma hayo hadalkaasu waa sidaa nin doonaya in dalku xidhxidhnaado oo maalin walbaya waxaa la mid a doorasho qof iyo cod ah nin kasta oo qolyahan siyaasadda ku jira ah waxaanu dhegaysanaynainu daawanaynay isaga oo leh la adduunyadii calaacashanay saaran tahay aniga haddii lay doorto dastuurkana waan dhammaystiri doorasho qof iyo cod ana waddanka waan gaadhsiin haddana waxay leeyihiin doorasho qof iyo cod ah yaan la qaadin dastuurkiina yaan la dhammaystirin ummadda dhulka joogta miyay dhagala'dahay ma indhala'dahay ilahay kolku xayawaan baynu naha soo maa yaa caqil buu ilaahay inaga dhigay wax garan dadkii dhegaysanayay hadda wuu joogaa kuwii laga dhegaystayna way joogaan haddana waxaanay leeyihin annagaa wax badbaadin bay leeyihin bal isa saar inay iswaafaqdi iyo in kale bal idinku ruux walowba caqligaaga weydiiyo ninkii isa saaran inuu aqaan yaan cunaqabataynta nalaga qaadin yaan daynta nalaga cafiyin yaan qof iyo cod la qaadin yaan dastuurka la dhammaystirin intiibuu ku celiyo wiilhaa waan samayn nin waliba waxaan leenahay iyaguna way isku dhex jiraanoo qaar baa la duufsaday oo qaar la riixayaa jira oo la leeyahay adiguna hor soco qaybtaana nin baa habeen yidhi war nimankan annagaa naqaanee hebel iyo hebel ha laysugu dhiibo oo iyagu dagaalka ha bilaabeen meel hebelna kolkaasay kori soomaali way wada dhegaysato way garanaysaa halkaas meel hebelna way baabi'i de muqdisho inay baaba'do meelana dhismaan kuwa degaana ha garteen taana oo iyadu say u dhismi lahayd ay u degi lahayd ilaahay ha garansiiyo walaamiin dhaha ilaahay iyagana ha garansiiyo
ninkaasu waxaa la yidhi islaan yaa wiilkeedii wiil kale isku soo booday oo way legdamayeen markaasay tihi war wiilka iska xajiyo saayeel kii kale aanba waan maqli waxaad ku leedahay kaaga aanba waan maqli ragga meelaha ka soo hadlayo muqdisho way maqlaysaa waxaad leedahay adiguna waad adigu tidhi muqdisho rag baa joogay way maqlayaan waxsan ku hadal ilaahay ha ku waafajiye oo wixii horena ha laga tooba keeno waxaan leenahay madaxweynahan maanta jooga ka gaban mayno wax la taaban karu hayaa muqdisho waa amni caasimadaha adduunka maanta la mid tahay haddii wax lagu dilana maraykanka waxaad aragtay lagu laayaa maalin walba iyo ingiriisba waa lagu laayaa haddii aan laguba dilin oo sidaa ay maanta ku sii socotana dee caddaata iyadaaba ka sara martay warso sidaa maaha war waxaan leenahay macdantii dhulka ku jirtay yaa la idiin soo saarayaa soomaaliya waxaad isku dilaysaan waxaa u badan gaaje gaajada durbo waydunka bixiye suga nacfiga dhulkiina ku jira inta la soo saari suga dhallinyaradana waxaan leeyahay maxaa la yidhi warkii maxaa la yidhi kadanha lagu gaadha mahmahdii soomaalidu u dhigtay maxay ahayd guul maxay bay dhaheen yacni nin xabadda la ysaga dhigi oo nin dhalay oo isagu nin ah ma liibaano lagu liibaano intii noqotay ilaahay bay leeyihiin laakiin intiina dambe dhallinyaroy marna ha aqbalina inaad qoriga ku kogsanaato dhafoorka xabadi kaagaga dhacdo annaan carruurtaydii dibadda geystay aniguna meesha aan maqlo uuno warwarramo uuno kolba wixii nacfi ee baashale waxaa ka soo galaa layidhi reera kuwa doonaya inay waddanka baabi'iyaan baa lacag soo diraa la yidhi kuwa lacagta aan kaga urursado raqdiinna da rag baa saasee idinkuna fahma oo yeeli mayna dhaha yeeli mayno ma liibaane muxuu ahaa lagu liibaanay marna ha noqonina raggii idinka horreeyey derbi walba ku aasan waa og tihiin waxay faa'iida hayaanna waa ogtihiin ilaahayna way xisaabtamayo dadkii ay laayeen ha moodin inta la dhinto uun aakhare meel layska joogi maqa waa meel lagula xisaabtami waa meel aadan weligaa ka soo baxayn waa meel ama cadaab mudan ama janno mudan nin walowba sidaad u sheekhii sheekh ismaaciil baa yidhi baa leeyahy arkaysaa maqlaysaa cadaab iyo janno soo inaan maqal cadaab hadda waa dadkood iska laysa uun dadkiisood u nabadgelisa uun jannadiina wataa labada jid kaad ku dhacdo unbaad aakharana ugu tegey aad iyo aad waxaan u leenahay oo aanaan la gabanaynin walaalayaal ha la sugo bal ninkani waxbaa qabyo ka ahe wuxuu sheegtay baaba yar ee uu leeyahay muxuu ahaa intii dastuurka la bedelay sanad baa ugu darmaday baan maqlay soo saas maaha war bal ha la sugo oo isaga iyo raggii ay heshiiyeen yaa shaqada ku jire wuxuu soo saaro ha la sugo tartankuna xabad maahee waa laga ilbaxay bahashaase waa in aad la timaado ra'yigii aad ku dhaami lahayd maalinna inaad tidhaahdo berri yaan la noolaanin ilaan yaan la noolaanin baa horey loo lahaa maalinna aad tidhahdo anaa wax noolayn suuroobi mayso dadku wuu ku garan caqli buu leeyahay bani aadamku xoolo ma aha wuu ku garan jinsi kasta uu yahay wuu ku fahamsan yahay waxaan leenahay walaalayaal odayaasha u dhashay soomaali guud ahaan waan la hadlaynaa haddii magac laguu bixiyo suldaan ama la bax ama ugaas la bax ama wabar la bax ama islaan la bax ama muxuu ahaa kii kale kii weynaa agga ilaahay yaabay baa naxayba maalin dhoweyd boqor sheego magac kasta sheego war magacaad sheegataay waa amar ilaahay wax kugu soo gaadhay inaadan ku aakhara seegin nin walowba kasbo yuuna aakharadaada adig ku seejinin mara yaroo cad baa lagugu duubi waxaa tidhi oo dhan baa qoran askar buu ilaahay kuu diray tii baa ku xisaabin hamoodin adoo ree hebelo inaad dhiman walle mara yaroo cad baa lagugu duubi bohol yar baa lagugu ridi kolkaaba waa laguu iman waxaad ahayd ba bartaa ku caddaan soona noqon maysa qabiilla waxba kugu tari maayo saasaan leenahay nimanka degaankan u nasab sheeganayo dee weli waxaa ii yar muuqata aniga suldaan cabdulaahi ahaan
caydiidna gar leh calina gar leh maxaa laga qaaday harkaa la cunay waa la baaba'ay dadna wuu jabay in nin uun la qabtay ahayd markaa oo tiraahdo unsur akhaaka daaliman madluum labadaba qabu ku yidhi nabigu laba goorba ninkaa dulmiga ka qabato wanaag baad u keentay ee tiraa waryaa daalim baa tahay ayr joog isagiina jannuu heli adigiina waad ajri baad ka heli wuu miyirsan ummadahuna way ka nabadgeli laakiin haddaad tiraa reebel iyo reebel baas tire maanta yaa laga adag yahay oo la yaqaanaa oo waddanka laga saaray ma jiro reer laga saaray mid laga adag yahay midna lama hayo war haddaan guwa kuu kordhaa gabo mooye ku tareen garaad iyo waaye arag ilaa wax ma dhaantid geed masaladii baa ina hor taalla walaalayaal ha lagu dadaala nabadda sidan ay maanta u socoto ha inoogu socoto dawlad ka horraysay oo maxamed siyaad barre ka dambaysay mayna jirin nimayna afartiisa joogo xaafad nimayna kaga soo dhacayn xabadii ma jirin maanta ka hor wuu dadaalay ninka meesha haystaa wuu dadaalay isaga oo jabal oo waxaanu daawanaynay baabuur saaran oo gacantiisa luquntiisa ugu xidhan tahayoo baasha ka soo dhacayo ka soo degayo inuu afka u dhaco aad ka yaabi oo niman ishayaan oo dagaalamaya yaanu u joognay war xasadnimo waxba laguma hele ilaahay baa xasadnimadu waa maxay waa la eedaaba ilaahay iyo nabigiisuba way noo sheegeen xasidku waa maxay waa wixii la weeye waa waxa lagu dhinto annagoon lahayn aana kale aysan nagu jirin oo ilaahay og yahay waxaan leenahay oonaan idiin caddaynaynaa war nin baa mayalka hayee ha la taageero laba ninna kursiga soo wada fadhiisan mayse midba waa mare ha la taageero xasan sheekh